bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan oo aad ku soo saqdaan barnaamijyadeena halkan waa channelkeenu ku leenahay YouTube-ka ee tubta wararka qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiibayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijyadeedkan idinku soo maqana waxaa ka mid noqonaya warkii hore war soo dhaaf dalka Belarus waxa uu si toos ah ugu biiray dagaalka culus ee ka dhex oogan wadamada Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. Vladimir Putin hogaamiyaha dalka Ruushka waxa uu ku dhawaaqay in uu gantaalo nuclear ah uu ku rakibanayo dalkan Belarus. Haddaba arrintan maxay ka dhigan tahay? Ukraine walaac muujinaysa, reer galbeedka ayay ka dalbanaysaa in lala soo gaaro gurmad caalami ah oo heerkii ugu dambeeyay waliba mid casri ah. Falaqayn ayaan daawadayaal ku sameyn doonaa, waxaan idiin soo gudbi doonaa waxa ay ka dhigan tahay in Putin hogaamiyaha Ruushka uu nuclear gantaalo ka sameeysan uu ku rakibto dalkan Belarus. Sababta Belarus arrintaasi u aqbashayna falaqayn ayaa sidoo kale ku eegi doona. Ukraine ma dhaba in ay iminka iyadana dagaal adag ku qaadayso dalkan Belarus oo loo soo marsiinayo gantaalada nuclearka. Wararkii ugu dambeeyay ayaan daawo doontaan ee daawadayaal soo dhawaada muuqaalkan like saar siina share garay inagu soo biir subscribe inoo saar channelka Furaga Maralka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinku soo gudbino. waa ku mahadsantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigan aragtidaada saliimka inoogu reeb. markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay. hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay in uu gantaalo nuclear ah uu ku rakibanayo dalkan Belarus la yiraahdo. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in gantaalaha ridada gaaban ee nuclearka uu siin doono dalka ay xulafada yihiin ee Belarus, isla markaana uu siinayo bilaha soo socda. waxa uu sheegay Putin in hubka Iskander M la yiraahdo uu awood u leeyahay in uu xambaaro gantaalada blastikada iyo kuwa caadiga ah iyo noocyada nuclearka ah. hubkan uu Ruushka siinayo dalka Belarus ayaa gaari kara masaafo dhan 500 kilomitir. Vladimir Putin hogaamiyaha dalka Ruushka oo ka hadlayay magaalada St. Petersburg wuxuu sheegay in dalkiisa uu gacan ka geysan doono sidii wax looga bedeli lahaa diyaaradaha dagaalka ee dalka Belarus, gaar ahaan nooca Su-25 la yiraahdo, si loogu rakibo hubka nuclearka ah. xiisada u dhaxaysa Ruushka iyo reer galbeedka ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii Ruushka uu ku duulay wadanka la yiraahdo Ukraine. Vladimir Putin ayaa tan iyo xilligaas wuxuu tilmaan ka bixiyay hubka nuclearka, taas oo dadka qaar ay ku macneeyeen in uu digniin u dirayo dalalka reer galbeedka si aysan u soo faragelin dagaalka uu ku qaaday dalka Ukraine. dagaalka Ukraine iyo sidoo kale Ruushka u dhaxeeya ayaa waxa uu cagta la sii galayaa 4 bilood, waxaana uu noqonayaa dagaalkii ugu cuslaa ee dhexmara labadan wadan. reer galbeedka ayaa faragelin ku haya, waxa ayna ku cadaadinayaan hogaamiyaha Ruushka Putin inuu xiisada yareeyo, ciidamadiisana uu ka soo daabulo magaalooyinka ay kaga sugan yihiin dalka Ukraine. laakiin Putin waxa uu sheegay in taasi aysan badhicin, ayna tahay riyo maalmeed aan sal iyo raad toona lahayn. dalka Belarus ayaa hadda waxa uu ka mid noqonayaa dalalka sida weyn ula safan wadanka Ruushka, waxaana loo soo marsiinayaa gantaalo iyo sidoo kale hubab kale oo lagu dhibaateynayo isla markaana lagu waxyeeleynayo dadka reer Ukraine. Belarus hadda waxa dhacday in diyaarado uu leeyahay dalka Ruushka ay ka soo duqeeyaan Ukraine xadka markaasiba Belarus arrintan waxay ku tahay arrin markaasi dhibaato ku ah iyada. reer galbeedka iyo sidoo kale wadamo kale oo iyada taageera ayaa iminka waxa laga cabsi qabaa inay xiriirka u jaraan oo ay wadankaasi gabi ahaanba ka takhalusaan siyaasadiisa. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu alaaba reer galbeedka ugu baaqa inay cunaqabateen dheeriya ku soo rogaan wadanka Ruushka oo dagaal ku haya dalkiisa. laakiin taasi ilaa iyo hadda wax badan kama hirgelin. cunaqabateenada lagu soo rogayna Ruushka waxba kama dhibin sida muuqata. hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ganacsatada ama maalgashadayaasha dalkiisa ugu baaqay in ay maalgashtaan dalkooda, isla markaana ay ka maarmaan cunaqabateynta lagu soo rogay
maadaama laga xanibay waxyaabihii dalkaasi laga soo dhoofin jiray isla markaana loo dhoofin jiray dunida dacaladeeda ama daafaheeda. dagaalka Ukraine iyo sidoo kaleba Ruushka waxyaabo fara badan ayuu saameyn ku yeeshay ilaa iyo haddana waa uu sii soconaya saacadba saacada ka sii dambeysana waa uu sii xoogeysanaya magaalooyinka ku yaala bariga gaar ahaan magaalooyinka mantaanaha ah ee Zaporizhzhia iyo sidoo kaleba Luhansk ayuuna dagaalka xooligiisa ka soconaya. dagaaladii ugu qaraara uguna cuslaa ayaa iminka dhex maraya labadan wadan. ciidamada Ukraine ayaa tiradooda la kordhinaya si ay isaga difaacaan ciidamada Ruushka walow la soo warinayo in hadda laga sifeeyay gebi ahaanba magaalada Zaporizhzhia oo toddobaadyadii la soo dhaafay ee ciidamada Ukraine ka dagaalamayeen. ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale iyagana waxay yihiin kuwa la qalabeynayo oo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa lagu risaynaya. Putin ayaana doonaya in uu guushiisa ka soo xaqiijiyo dagaalka uu dalkiisa ku qaaday wadanka Ukraine. hadda waxa ay aad u hadalhayaan warbaahinada caalamka dalkan Belarus oo saameyn markaasi togan ku leh hadda waqti xadirkan la joogo dagaalka u dhaxeeya labadan wadan ee Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. Ruushku waxa uu sheegay in dalkan Belarus uu taageerayo isla markaana uu xitaa ka bedeli doono diyaaradaha dagaalka oo loo yaqaan Su-25 waxa uu sheegay in uu ku rakibi doono hubka nuclear-ka diyaaradaha uu keenayo dalkaasi Belarus. haddaba tani maxay ka dhigan tahay waa su'aal da'weyn oo ay isweydiinayaan bulshada ku nool daafaha caalamka iyo sidoo kaleba siyaasiyiinta dalalka reer galbeedka ahi. waxa ay tani ka dhigan tahay yaa la leeyahay saaxiibtinimo gooni ah oo iminka ka dhex bilaabanaysa labadan wadan ee Ruushka iyo Belarus maadaama markii horeba ay saaxiibo ahaayeen laakiin hadda saaxiibtinimadooda ayaa waxay noqonaysaa mid sii xoogeysata oo caga adag ku taagnaata. Ukraine ayaa loo tashanaya waxaana la doonayaa in gebi ahaanba laga takhaluso oo xiisadeeda la soo afjaro ugu dambeynna iyada iyo dalkeedaba la baabi'iyo. laakiin ilaa iyo hadda reer Ukraine iyo ciidamadooda waxay ku jiraan iska caabin adag waxa ayna ka hortagayaan ficilada guracan oo ay maleegayaan ciidamada Ruushka kuwaas oo ka dhex dagaalamaya dalkooda iyo sidoo kaleba magaalooyinkooda. dad Ukraine u dhashay ayaa la dilay la dhaawacay qaarkood ayaa la barakiciyay qaarkoodna iminka waxay ku go'doonsan yihiin warshadaha markaasi kiimikada soo saartay ee Azot la yiraahdo oo ku taala magaalada Zaporizhzhia ee bariga dalka Ukraine. dhibaatooyinka ay ciidamada Ruushka geysteen ma aha kuwa hal barnaamij lagu soo koobi karo waxaana aad u hadalhaya oo qaadaan dhigaya falaqayaasha markaasi ka faalooda arrimaha siyaasadaha caalamka gaar ahaan dagaalkan culus ee ka dhaxoogan wadamadan Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. wixii warar ah oo daawadayaal ku soo kordha barnaamijyadeena xiga ayaa ku daawan doontaan halkaas ayaan idinku soo gudbin doonaa xogo iyo macluumaad. muuqaalkan like saar sina share garay inagu soo biiro subscribe inoo saar channelka Faragan Balaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinku soo gudbino. waa ku mahadsantahay daawadela socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb. tan iyo barnaamijkana kiisa kale daawadayaal saaxiibayaal intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo ammaana Allah.